dekada ayaa hoggaanka horyaalka dalka ayaga hogaaminayaan waxaana kooxdaasi doonaya markoodii saddexaad oo xiriirna inay qaadaan horyaalka heerka koowaad ee dalka waana kooxda kaliya la dhigi kara xiriireedka marka loo fidiyo kooxaha kala horseed kooxda la dagaalami karta nadiga kubadda cagta ee dekada hoggaanka horyaalka Soomaaliya labada kooxood waxay galayaan sabar kooxeed cagta dekada waxaa ka maqan laacib markaa daafac dhaxo muhiim ah kaasoo ah ciyaaryahanka lagu magacaabo Sida Cali Baana weeraya soo qaadeen waa ka Shakunda Anwar Shakunda wanil nadiga kubadda cagta FC kani waa idin sheegay waa geesi waa ciyaaryahan markaasi hal door fiican tiimka Elman ku leh waa dhaliya halisa waxana uu ciyaarta ka dhigay hal gool yeebar oo ay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Elman FC Elman ayaa hal yeebar ku hogaaminayaan waxana gool ka dhaliyay dhaliyaha halista wiilka markaa laga baqo wiilka daafacyada ay ka gariiraan wiilka markaasi halista ee golinta horyaalka Soomaaliya mar kale doonay inuu ku guuleystay Anwar Shakunda si fiican ayuu ugu faa'iideystay waa uu soo jiiday misna tartiib si bidix ayuu markaasi laacibkaasi kubaddaasi tartiib ayuu ku laaday hal yeebar ayuuna ka dhigay Anwar Shakunda wuxuu markaasi inta sarcaad uu ku riday ciyaaryahanka lagu magacaabo Akram Kabemba Musa lagu dheer uu taagan laakiin waxba ma aysan qaadin ciyaaryahan Shakunda ayaana markaasi shabka la xiriiray waana hal yeebar Elman ay leeyihiin zoonka uu taagan Daadir Amiin Daada oo markaa xirfadda dhinaca bilzoonka ku fiican laakiin laba ciyaaryahan kale oo markaa reer Uganda ayaa kubadda u sharaxan Daadir Amiin Daada oo sidii CR7 oo kale u istaagaya kubadda soo tuurday dabcan Daada ya salaam tobil Daadir Amiin Daada ayaa ka dhigay ciyaarta laba gool yeebar kani waa xirfadyahan inta kubadda markaa bilzoonka uu soo tuurin ayaa markaa idin sheegay bilzoon ilma aragta ayuu ka dhaliyay golaha Xasan Afgooye ayuu ka dhaliyay kubad markaasi bilzoon cajiiba waxaana uu ka dhigay sheekada laba gool yeebar inay ku hogaamiyaan naadiga kubadda cagta ee Elman FC wow waxa uu isaagaabkii CR7 oo kale si la yaqaan uu isagu xuriyay raadigu aan dhiga lexda yurtan aniga garanaye wow wuxuu dhaafsiyay guud ahaan bareeriyo dhan hal qof xitaa kuma dhiiran in madax markaas uu ku bixiyo سيقول بدنا يا لسودي وكبدي مركزي دفاعي دلمن انت بدل غلطات كذا بدل وحابد بديمو يريان كلاجو مجعبو ان احمد غاشي وحين غلط كبر مركز سقاط كلا يسميان المن اقول له قفايست قيبتك ودي عياطة يا صل ولا باستيميكا adiga kubadda cagta ee Elman Gulayeed ayaa kubadda markan haya ninka lagu magacaabo Gaashe Seeguro bada markan Anwar Shakunda ayaa kubadda markan soo jiidaya Anwar Shakunda seeguro badan banaanka ayaa la soo dhigay laakiin waa laga soo saaray mar kale waa ka ya salaam banaanka ayaa martay lambarkiisa nasaxada ayaana haatan badal u taagan Shakunda si fiican ayuu cagureejiyay siday taay uu cagureejiyay banaanka uu soo dhigay hey waa taa madfici Allah waxa uu tuuray ciyaaryahanka lagu magacaabo Tawfiiq Razaak darbe aad u kulul waa kubadii haddii goolkan uu dhalaa wuxuu noqon lahaa goolka ugu quruxda badnaa Soomaaliya xilciyaareedkan awiya maalin
ciyaartii u dhaxeysay kooxaha kala Elman iyo sidoo kale Dekada waxay ku soo laabteen 2 gool iyo bar way ku badeen Elman Dekada ayaa lagu lagday 2 gool waxa u dhaliyeen kooxda Dekada Anwar Shakunda iyo sidoo kale ciyaaryahanka kale lagu magacaabo Shakunda iyo sidoo kale Daadiramin Dada